السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada arday cashirkeenii toddobaad ee buugga beginnerka. maanta cashirkeena waxaan kusoo qaadan doonaa kow sida loogu dhawaaqo dhowr xaraf ama dhowr dhawaaq ayaan kusoo qaadan doonaa. waxaan kaloo ku qaadan doonaa erayo fara badan oo vocabulary cusub baan ku qaadan doonaa. okay, number 1 aan ku bilowno. waxaan qaadanaynaa maanta sida loogu dhawaaqo xarafka j. Okay, حرف okay, okay, children, kitchen, chair, حرفكم waxaa la yiraahdaa ama dhawaqa noocaas wax loo yaqaan children, kitchen, chair, children, kitchen, chair. waa dhawaqii Soomaaliga shaqal dheerkii Soomaalihayn ama waa shaqal dheerka meeshkeed waa shaqal dheerkii Soomaaliga kaleeto ama waa long vowel ama long sound oo maxaa loogu talagalay eeda xarafka eeda for example bathroom, armchair, carpet, all right, bathroom, armchair, carpet, bathroom, armchair, carpet, oi, waxa la yiraahdaa oi. okay, inta badan waxaa sameeya markay o iyo y ay israacaan. boy, toy. okay, waxaan soo qaadanay waxaan ri kan waxaa lagu dhawaaqaa iyo oi saddexda dhawaaq. okay, example kale aan ka keenno, example kale aynu ka sameyno xarfo kale ama xaraf kale ku dhamaanaya ama ay ku jirto xaraf aan ka fikirno. waxaa ka mid okay, waxaan haysanaa chair, kitchen iyo children soma. okay, maxaa ka mid example kale haddaan u sameynan ka raacino kan sanaan raacino xaggan aan dhigno. okay, waxaan oran karnaa also, let's see, and check oo buuggii lacagta soo maaha ama checkii lacagta. waxaan kaloo oran karnaa maxay chest oo xabadka soo maaha xabadka ama beeraha chest. all right, ayuu sameynaya. okay, bathroom, armchair, carpet. okay, aada Soomaaliga ama maxaa like shaqalka dheer dhawaqa dheer ayadan example aan isku daynaa ka sameyno. waxaan kaloo oran karnaa maxay sorry far markuu meesha ay fog tahay waxaan raacnaa fog. okay, ayay ku waa double okay, waxaan haysanaa oi boy baan haysanay, toyna waan haysanaa. waxaan ereygan wuxuu sameysmaa markii o iyo y saraacan. right, waxaan ku daraynaa hal example oo kaleeto oo aad arki doontaan inta badan aad aragtaan oo employ oo shaqaalaysiin. okay, okay, aan sii wadno. waxaan kaloo haysanaa ereyo kaleeto ayaa xaggan old waa maxay
old waa gabowga ama markuu qofku gabowga ayaa la yidhahdaa old. Window waa daaqadii. Sofa waxaa la yidhahdaa kursiga ballaaran ayaa la yidhahdaa ee dadku ay ku wada fadhiistaan. Name magac. Table miis. Bookcase meesha ama shayga buugaagta lagu rito ama buugaagta la saaro ama maxaa like sida maktabada oo kale shelf oo kale. Pupil pupil is student arday wey. Pupil waa arday. Music caadiya. Computer waa computer caadi. Okay, egg eraygan aan baranayno barasho kaliya maaha, waxaan lagu barayaa dhawaqyo kaleeto. waxaan la barayaa dhawaqa o. Old window sofa old window sofa okay sofa. Okay, dhawaqa xagga sadarkaas oo dhan waxay leeyihiin hal dhawaqa iska mid waa maxay okay. xaggan waxaan haysanaa a name table and bookcase. Okay, a xaggan waxaan haysanaa maxay u ama sorry pupil u. Music computer okay u ayaa lagu dhawaaqay. Okay, xaggan waxaan haysanaa like erayo fara badan oo ilaa 8 gaaraya kuwaasoo aan qaybna xagga sare kusoo arayn qaybna aynan hore u arag. waxayna sifeynayaan qolkan number walba iyo ereygiisana way iswada wataan. Okay, sofa waxaa la yidhahdaa kursiga dheer ayaa la yidhahdaa sofa number 1. Okay, number 2 bookcase waa taa waxaa la yidhahdaa khaanada ama meesha buugaagta la saarto ayaa la yidhahdaa ama maktabada oo kaleeta oo buugaagta lagu furtay documentska. Okay, computer wada naqaanaa oo computerka caadiga ahaa. A toy waxaa la yidhahdaa shayga ay carruurtu ku ciyaaraan. wax walba noqon kara. wuxuu noqon karaa caruusad ama wuxuu noqon karaa dee bahalka yar ee ciyaalku ciyaaraan ee like stuffed animalka. Carpet waxaa la yidhahdaa roog halka dhulka fidsan ee akhdarka ayaa la yidhahdaa carpet. Floor waa sibirka dhulka ee rooga dul yaallo. Okay, ka rooga dul yaalla la yidhahdaa ama sibirka ama mutulal ha ahaado labadaba ku noqdaba floor bay noqonaysaa. Door waa albaabka. Door. An armchair waxaa la yidhahdaa kursiga meelaha gacmaha la saarta leh. Okay, meelaha gacmaha la saarta leh. haddaan chair niraano kaasuu noqonaya. laakiin armchair waa inuu labadaas shay ee meelaha gacmaha la saarnay uu leeyahay. Okay, cashirkeena maanta ardayay intaa ayaan joojinaynaa insha allah. maalinka dambe waxaan baran doonaa sida alaabta guriga taalo oo dhan looga sheekeeyo insha allah. intaan insha allah cashirka 9aad kulmi doono, cashirka 8 kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.